siyaasi Axmed Gobonimo oo ah gudoomiyaha 26 joog xisbiga kulmiye ayaa waxa uu mahadnaqayaa bulshadii kala duwaneed ee ka qayb qaadatay maalinta xuska qaran ee 18 May waxaan u hambalyeeynayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliland ee ku kala nool gudaha iyo dibadba isagoo carabka ku dhuftay maalinta qiimaheeda iyo dareenka ay u leedahay dhammaan shacabka Soomaaliland ayaa waxa hadalkiisii kamid ahaa نجاح عبد محمد تلفزيون عالمي بدعس 24 TV مقالة هرقيسة